dadweynaha dalka Tanzania oo ka carooday xariga loo geystay wiil dhalinyaro ah kadib markii uu gubay sawirka madaxweynaha Tanzania. intaan ugu gudgalin sheekadan hadii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasanid. farshaxaniste reer Tanzania ah oo lagu eedeeyay in uu gubay sawirka madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah ama in uu gato xarigaasi oo ka bixiyo $2,000. sidoo kalena waxaa lagu eedeeyay in uu geystay dambiyo ka dhan ah bulshada reer Tanzania oo uu ku faafiyay dhanka internetka. farshaxanistahan ayaa sidoo kale lagu soo oogay dacwad ah in sawirka markii uu gubayay uu aflagaadeynayay madaxweynaha dalkaasi Tanzania haweeneyda lagu magacaabo Samia Suluhu Hassan. farshaxanistahan oo 24 jir ah ayaa qirtay dambigii uu galay wuxuuna ku guuldareystay in uu maxkamadda horteeda iska difaaco. dhanka kale qareenada qaar ayaa isku khilaafay arinta sharcigan waxayna sheegeen in sharci uusan ka degsanayn cidii ku xadgudubta madaxweynaha Tanzania ha ahaato Samia Suluhu ama qof kale. 2018 dowladda Tanzania ayaa soo saartay sharci adag oo ku saabsan faafinta iyo wararka been abuurka ah kaas oo dadka dhaleeceeya dowladda ay u arkaan in lagu xakameynayo xorriyadda hadalka. dhinaca kale qareenada qaar ayaa sheegay in uusan jirin sharci dhigaya ciqaabta uu mudan karo qofka ku xadgudba ama aflagaadeeya madaxweynaha Tanzania. booliska Tanzania ayaa sheegay in uu erayo adag u adeegsaday wiilkan dhalinyarada ah madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu Hassan. waxayna sheegeen in akoonkiisa TikTok uu soo galiyay muuqaalkaasi 30 Juun sanadkan aynu ku guda jirno ee 2024. balse falkan oo ay u aqoonsadeen dadka Tanzania mid ka baxsan anshaxa ayaa waxa uu dhaliyay carad dadweyne. booliska ayaa ku soo eedeeyay wiilkan dhalinyarada ah in uu xadgudub dhanka internetka ah u geystay madaxweynaha dalkaasi. sidoo kalena waxa ay ku soo eedeeyeen in uu geystay kicin bulsho. wiilkan dhalinyarada ah ayaa aamusay kadib markii la siiyay fursad uu isaga difaaco eedeymaha loo soo jeediyay sida ay tabiyeen warbaahinta gudaha dalka Tanzania. xeer ilaalinta dalka Tanzania ayaa sheegay in ninkan ciqaab adag la marsiiyo si ay dadka kale ugu tusaale qaataan oo ay u ilaaliyaan una ixtiraamaan madaxweynaha dalkaasi.